marmarka qaar markaan galno guryaha qaarkooda waxaan qalbiga ka dareemaynaa farxad iyo raynrayn iyo weliba deganaan dheeri ah. Guryaha qaarna markaan galno waxaan qalbiga ka dareemaynaa murugo iyo ciriiri. Dadka qaar oo inaga mid ah waxay guryahooda ku dareemaan farxad iyo deganaan iyo raaxo, wuxuuna qofku jeclaanayaa inuu mar walba ku laabto gurigiisa. Dadka qaarna waxay ka cararayaan gurigooda, waxayna ku dareemayaan murugo iyo ciriiri dhanka qalbiga ah. Qofkuna ma jeclaanayo inuu ku laabto gurigiisa ilaa inuu hurdada u aado mooyee. Balse walaalkayga muslimka ahow ha nixin, waxaan insha Allah muuqaalkan gudihiisa ku baran doonaa salaad gurigaaga ka dhigaysa guri iftiimaya oo malaa'igtuna ay ka soo daawanayso samada. Nala soco si aad u ogaato salaadan sababaysa in malaa'igtu ay ku soo degto oo ay isku hareerayso gurigaaga. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxaa jiraan guryo ay malaa'igtu timaado iyo weliba guryo ay yimaadaan shayaadiinta. Warkaasi ma ahan war laga badbadiyey, balse waa xaqiiqo dhab ah oo jirta. Malaa'igtu calayhimussalaam waxaa laga abuuray nuurka, mana garanayaan waxaan ahayn taacada Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala suuratul anbiyaa dhexdeeda ku yidhi: yusabbixuuna alleyla wannahaar laa yafturuun. Waxay malaa'iguhu habeen iyo maalin iyo waqti walba u tasbiixsanayaan rabbigooda subxaanahu wa tacaala. Cid kale lama wadaajiyaan cibaadada rabbigooda subxaanahu wa tacaala. Malaa'igtu calayhimussalaam waxay jecel yihiin meel walba oo Alle lagu ateecayo subxaanahu wa tacaala. Dhulka ayay ku faafaan iyagoo raadinaya meel lagu hayo dikriga Alle subxaanahu wa tacaala, sida uu noo caddeeyey nabiyuna Muxamed calayhi salaatu wassalaam. Ku sugnaanshahooda dhulkuna ma ahan mid ku kooban masaajidda oo keliya. Masaajidkana waa ay ku sugan yihiin, sidoo kale waxay dhex joogaan guryaha mu'miniinta. Waa marka uu gurigu yahay guri lagu dhex sameeyo cibaadada iyo taacada Alle subxaanahu wa tacaala. Guriga ay dhexdiisa malaa'igtu joogtana waxaad dhexdiisa ka helaysaa deganaan iyo raaxo iyo weliba farxad dheeri ah. Sidaas darteed ayuu wuxuu nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam noo sheegay in salaada qiyaamuleylka oo lagu tukado guriga dhexdiisa ay gurigaas ka dhigayso mid nuuraya oo habeen iyo maalinba iftiimaya sida luulka oo kale. Waxay salaadani wada nuurinaysaa guriga iyo qofka guriga deganba, waxaana u sabab ah waxa guriga dhexdiisa lagu sameeyo oo isugu jira salaad iyo qur'aan akhris iyo weliba dikriga Alle subxaanahu wa tacaala. Wuxuu yidhi nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam: wassalaatu nuur, salaadu waa nuur. Waxaa sidaas wariyey Muslim. Haddaba waxaa lagaaga baahan yahay in aad joogtayso akhrinta qur'aanka kariimka ah iyo xusidda Alle subxaanahu wa tacaala. Maxaa yeelay wuxuu arlada kuugu noqonayaa nuur, samadana wuxuu kuugu noqonayaa kayd adiga kuu yaalla. Waxaa sidaas wariyey Ibnu Xibbaan, Albaanina waa uu saxiixay. Sidaas darteed ayay malaa'igtu calayhimussalaam samada ka soo arkaan kuwa habeenkii tukada salaatuleylka guryahooda, sida aan habeenkii xidigaha u aragno oo kale. Sidaas darteeda walaalaha muslimiinta ahow, qofkii doonaya inuu Alle subxaanahu wa tacaala u nuuriyo gurigiisa, waxaa looga baahan yahay inuu gurigiisa ku camiro akhrinta qur'aanka kariimka ah. Sidoo kale waa inuu ku camiraa salaadaha sunnada ah iyo qiyaamuleylka. kuwaasina waa kuwii uu Alle subxaanahu wa tacaala ka yidhi: tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun. waa kuwo dhinacyadooda ka fogeeya hurdada oo habeenkii u taagan salaatuleylka. waxay baryaan rabbigooda iyagoo ka baqaya cadaabkiisa, rajana ka qaba Alle naxariistiisa. waxaan ku irsaaqnayna waxay ku bixiyaan fii sabiilillaah iyo ilaahay taacadiisa subxaanahu wa tacaala. sidoo kale wuxuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ugu bishaareeyey in ay caan ka noqon doonaan ahlu samaaga dhexdooda. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن البيوت التي يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض. قال: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ليضيق على أهله وتحضره الشياطين وتنفر منه الملائكة، وإن أصفر البيوت لبيت صفر من كتاب الله. allaha ka raali noqdee waxaa abu hurayra laga wariyey inuu yidhi, wuxuu yidhi rasuulku salaallahu calayhi wasalam, guryaha dhexdooda qur'aanka lagu akhriyo waxay ahlu samaaga ama inta ku sugan samada oogu iftiimaan sida ay samadu ugu iftiimto dadka arlada ku sugan oo kale. wuxuu kaloo yidhi, guryaha aanan dhexdooda lagu akhrinin qur'aanka waxay cidhiiri ku noqdaan ahalkooda, waxaana yimaada shayaadiinta, malaa'igtuna waa ay ka carartaa. guryaha cidlada ah ee haawanayana waxaa ugu cidlaysan guryaha ka cidlaysan oo aanan lagu dhex akhrinin kitaabka alle subxaanahu wa tacaala, ayuu yidhi nabigu salaallahu calayhi wasalam. guryaha lagu nuuriyo qur'aanka kariimka ah wuxuu alle subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday inuu ilaalinayo oo uu difaacayo oo uu nuurkiisana u siyaadinayo. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala suuratulfaatir dhexdeeda ku yidhi: بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. kuwa kitaabka alle subxaanahu wa tacaala akhrinaya oo kuna camal falaya salaadahana xilliyadooda ku guta oo waxa aan ku irsaaqnayna bixiya oo u bixinaya si hoose oo qarsoodi ah iyo si muuqata oo loo wada jeedo. kuwaasi waxay alle subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaan ganacsi aanan baarin. liyuwafiyahum ujuurahum wayasiidahum min fadlih innahu ghafuurun shakuur. inuu alle subxaanahu wa tacaala abaalgudka acmaashooda u oofiyo iyagoo dhammaystiran oo aanan waxba laga nuqsaaminin, oo kadibna uu deeqdiisa ooga kordhiyo oo uu siiyo abaalmarin dheeri ah. alle subxaanahu wa tacaala waa mid u dambi dhaafid badan qofkii u toobad keena. sidoo kale alle subxaanahu wa tacaala waa mid ku mahadnaqid badan intii raacday oo rumaysay subxaanahu wa tacaala. sidaas darteeda walaalkayga muslimka ahow, ku dadaal mar walba in aad ka mid noqoto ahlulqur'aanka. nicmada sugaysa oo u dambaysa ahlulqur'aanka waa nicmo qofkii garanaya ka dhigaysa mid kifaaxa oo faraxsan dhammaan cimrigiisa. wuxuuna nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrinkaas ka yidhi: yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlih. waxaa maalinka qiyaamaha la keeni doonaa qur'aanka iyo ehelkiisa, alladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi ddunyaa, kuwaasoo ku camalfali jiray markii ay joogeen adduunyada. taqdumuhu suuratu lbaqara wa aalu cimraan, iyagoo ay hogaaminayaan suuratu lbaqara iyo suuratu aalu cimraan. tuxaajaani can saaxibihimaa, iyagoo u doodaya saaxiibkooda. wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal, waxaa sidoo kale abi hurayra allaha ka raali noqday laga wariyey inuu yidhi: qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam: ayuxibu axadukum, midkiin ma jecel yahay, idaa rajaca ilaa ahlih, markuu ku laabto ciddiisa, an yajida fiih, inuu gurigiisa ka helo oo uu oogu tago 3 khalifaatin cidaamin simaan, 3 halaad oo riman oo waaweyn oo buurbuuran. qulnaa nacam, wuxuu yidhi waxaan dhahnay haa rasuulka ilaahayow, waynu jecelnahay. qaal: fa 3 aayaatin yaqra'u bihinna axadukum fii salaatih. wuxuu yidhi 3 aayadood oo midkiin uu ku akhriyo salaadiisa dhexdeeda ayaa khayrun lahu min 3 khalifaatin cidaamin simaan, ooga khayr badan 3 halaad oo waaweyn oo buurbuuran. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. nicmo intee la eg ayaa intaan ka tagnay raadinaynaa nicmo adduunyo oo dhammaanaysa. allaahumma innaa nas'aluka an tuniira quluubanaa wa buyuutanaa bidikrika wa bilqur'aani alkariimi wa bisunnati annabiyi sala allahu calayhi wasalam. allaahumma nawwir lanaa quluubanaa wa qubuuranaa wa buyuutanaa wa axyinaa bilqur'aan wa amitnaa calayh wabacathnaa calayh. allaahumma aamiin. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.